maanta ay tahay 23 May oo loo asteeyay xisbiga mucaaradka ee isu soo bixiisa ololaha doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada ayaa kumanaan ka tirsan shacabweynaha magaalada Caynaba waxay isugu soo baxeen jidadka waaweyn ee halbowlaha ee dhexmara magaalada Caynaba kuwaasi oo sita astaanta calanka ah ee u gaarka xisbiga mucaaradka iyo waliba astaanta musharaxiinta ka sharaxan xisbiga mucaaradka ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka banaabaxani maanta ay sameeyeen bulshada ku dhaqan gobolka Saraar ayaa waxa kala soo qayb galay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID injineer Faysal Cali Waraabe waxaana si balaaran loogu soo dhaweeyay gudoomiyaha iyo wafdiga hogaaminaya magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar soo dhaweyn kadib duleedka magaalada Caynaba oo lagu soo dhaweeyay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID waxa loo soo galbiyay xarunta dhexe ee xisbiga mucaaradka ee UCID ku leeyahay magaalada Caynaba kumanaan ka tirsan shacabweynihii fagaaraha maanta isugu soo baxay ayaa waxa halkaasi kala hadlay musharaxiinta golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee ka sharaxan xisbiga mucaaradka ee UCID iyo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID ee gobolka Saraar intii aad taagnaydeen xildhibaanadiina iyo xisbigiina gudoomiye xisbiga waxa ka sharaxan 6 xubnood oo golaha deegaanka iyo 5 xubnood oo baarlamaanka horta mas'uuliyadda macnaha halkan aanu ka haynay waxay ahayd macnaha taagnayd 12 xubnood ee musharaxiinta gudoomiyihiisa iyo taageerayaashiisa iyo dadkii ilaa saaka u taagnaa mayno soo cud raaci mayno gudoomiyaha Faysal Cali aan kugu soo dhaweynaynaa magaalada Caynaba gobolkan dadkan badan ee halka ka muuqda iyo dadka u maqan dinkaba waa kugu soo dhaweynaynaa musharaxiintiina goobaha iyo kuwii dowladda hoose annagu taageeradii iyaga iyo adigaba aan ku siinaynay iyo xisbiga siinay waa ta halkaa ka muuqata wey waxaan sugaynaa mustaqbalka dee maanta waxaan ku rajo weynahay wanka inaynu qaadnay adiguna dayacaad ka leelaysaa salaan kadib waxaan ku soo dhaweynayaa ceelkii Caynaba ee taariikhiga ahaa iyo gobolka Saraar gudoomiyaha xisbiga UCID Faysal Cali Xuseen ayaan ku soo dhaweynayaa gudoomiye waad arkaysaa dadkan ilaa saaka ayay taagnaayeen way daalanaayeen waan uga mahad celinayaa waana ka raali gelinayaa sida ay ilaa saaka u taagnaayeen taageerayaasha sharaf dadkaasi ilaa maalintii la sameeyay kulmiye xisbiyada la sameeyay waxay ahaa kulmiye maantana waad arkaysaa halka ay marayaan way ku soo dhaweynayaan waxaan ku leeyahay ku soo dhawow ceelkii Caynaba taariikhiga waa ka ceelkii Caynaba taariikhiga ahaa waad ku soo dhawaanaysaa walaalayaal waxaan muddo dheer u halgamaynay oo doonaynay inaan codkiina oo hagar la'aan helno insha Allah biidnillaahi kariim waxaan idinka baryaynaa oo aad iyo aad idinka baryaynaa inaad codkiina siisaan 31 May waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa oo runtii aan ilaaway gudoomiye Faysal Cali Xuseen oo aan rajaynayo imika inuu isbedel aad u weyn xisbigiisa iyo isagaba ku dhacay anigu waxaan ka mid ahay musharaxiinta golaha deegaanka ee degmada Caynabo runtii waxaan soo marnay gobolada Saraar gobolada tuulooyinka degmooyinka oo xukumo gobolkani waxaan soo aragnay baahiyaad fara badan oo iyo beeno fara badan oo xisbiga muxaakimka ahi runtii uu yiri oo aanu fulin golayaasha deegaanku way tartami doonaan way kaftami doonaan way sufaani doonaan waa marka aynu dooranno hogaamiye aqoontiisa iyo kartidiisa iyo dhalinyaronimadiisa wax ku qabanayo gobolkan isbedelka uu u baahan yahay ka muujiya عودا guulaysato oo ku baahi qaba oo mudabaro ku sugayay waxaynu gobolada kala dheernahay oo aynu maanta ku faari karnaa waa xuskii koobaad ee la isu soo baxay gudoomiyaha tuur ixtiraamay naga soo qayb galay idinku codsayna inaan noogu weerisaan codkiina inaan noogu weerisaan fartiina inaan noogu weerisaan cududiina ugu dambeyntii halkaasi waxaa ka hadlay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID injineer Faysal Cali Waraabe waxaana uu mahad celiyay bulshadii sida balaaran ugu soo dhaweysay magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar magacaada waxa weey waxa maanta u hiliisa waxaan ugu faraxsanahay ilaahay uu ugu farxay in maanta Caynaba dhalinyarta u ordisa ay wada yihiin deegaanka jaamiciin weey waxa weey
hoggaan baa inaga xumaaday hoggaankeena siiyo subxaana wa tacaala hoggaan baa inaga xumaaday hoggaanka ilaahayna siiyo isku soo wada duub oo maanta ayay ahayd ololaha doorashooyinka maalintii ugu horeysay una lahaa xisbiga mucaaradka ee UCID kumanaan ka tirsan shacabweynaha magaalada Caynaba ayaa si ballaaran maanta ugu dabaaldegay magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar iyagoona bulshadaasi ay sidato astaamaha u gaara musharixiinta iyo waliba calanka xisbiga mucaaradka ee وعلي هذا ذراع لثاني وركة تلفزيون كون كيبل مقالة Caynaba